مسؤولينتani warkacay wakiilka midowga ardayda qaranka Soomaaliyeed Uganda Cabduqaadir Cumar Cabdilla Fiidka ayaga waxay booqasho ku tageen macad ka dhameystiran ee YMCA Buombo oo ay wax ku bartaan in ku dhow ilaa 50 arday Soomaali ah. macadkan oo ku yaala degmada Wakiso ee gobolka dhexe Uganda. gudoomiyaha ardayda qaranka Soomaaliyeed ee macadka Yaxya Cabdulle ayaa soo dhaweeyay xubnaha ka socday midowga ardayda qaranka Soomaaliyeed wuxuuna ugu warbixiyay xaaladda ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata college-kani. gudoomiye mar labaad iyo mar saddexaad ku soo dhawo YMCA Comprehensive Institute Buombo Campus. waxaan aad ugu faraxsanahay booqashadaada. runtii tani waxa marqaati ka tahay ay muujinaysaa ka warqabka iyo sida uu dhiiran tahay inaad ka warqabto ardayda Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Uganda meel waliba ay joogaan. taasoo macnaheedu tahay inaad halka maanta noogu imaaday adigoo jooga meel intaas oo kiiloomitir naga jirto ama nooga fog aan ugu imaaday inaan ogaato xogteena sida oo noolnahay waxbarashadeena iyo caqabadaha aan kala kulano halkan. sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa ardayda Soomaaliyeed ee dhigata YMCA. runtii waxay muujiyeen isku duubnaan iyo hadaf. wakiilka midowga ardayda qaranka Soomaaliyeed Uganda Cabduqaadir Fiidka oo ardaydan kala sheekaystay waxbarashada iyo nolosha macadka ayaa ka dhawaajiyay inay bilaabi doonaan tirikoob rasmi ah. sidoo kale waxa uu ardayda kula dardaarmay inay ka fogaadaan qabyaaladda iyo kala qubnaanta. qorshaha waxyaabaha noogu jira waxaa kamid ah inaynu sameeyno tirikoob rasmi ah oo ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata jaamacadaha ku yaala dalkan Uganda, taasoo iyada naftirkeeda sahli karta waqtiga aynu doonayno in doorasho cod iyo qof aynu gaarsiino madaxweynaheena ama gudoomiyaheena ugu sareeya ee midowga ardayda qaranka Soomaaliyeed markaynu rabno inaynu doonano insha Allah taana waynu ka shaqeyn doonaa. dhibaatooyinka ugu badan hadda dalkan ardaydeena ku haysta waxaa kamid ah qabyaaladii oo inta dalkii kala soo tagno qurbihii la nimid. runtii waa wax laga wanaagsan yahay. insha Allah waxaan isku dayaynaa in sida ugu macquulsan ugu shaqeyno sidii ardayda Soomaaliyeed runtii arintaasi looga wacyi gelin lahaa. waa dareemi kartaa markaad dalkaagii aad ka maqan tahay oo dal kale aad joogtid qofka Soomaaliyeed ee shalay aad dalkii ku nacbanaada ah qofka ugu jeceshahay oo dadka kale kaaga sokeeya. marka insha Allah waxaanu rajaynaynaa inaan si wanaagsan waxyaabo badan kaga qabanno oo ay qayb ka tahay waxaa la soconaa ardayda Soomaaliyeed halkan hadda markay joogaan waxyaabaha ugu badan ama caqabadaha ama waxyaabaha ugu dhow ee markay rabaan inay jaamacad galaan ay u baahan yihiin inay safaaradda la xiriiraan iyo waxyaabo kale. waxaynu ka shaqeynaynaa haddii Allah awood laga helo inaynu wax badan ka qabanno ama wax badan isbedel wanaagsan aynu ka sameeyno. markaad la tacaamulaysaan safaaradda waad rabtaan inaad aadaan high commissionka insha Allah haddii Allah awood laga helo. ugu dambeyntii qaar ka mid ah ardayda wax ka barata macadka ayaa dareenkooda ku aadan booqashada halkan ay ku yimaadeen midowga ururka ardayda qaranka Soomaaliyeed ee Maqso ka warbixiyay. salaamiya markii koowaad ardayda Soomaaliyeed ee saldhigano oo xarunta saldhig wax isla barano maadaama ay yihiin ardayda Soomaaliyeed waxaan marka xigtan salaamaya gudoomiyaha ardayda qaramada midowga oo mar dhow la soo magacaabay walaalkeena Cabduqaadir Fiidka. waxaan kaloo salaamaya gudoomiyaha Yaxya Cabdullaahi Bariise oo kamid ah gudoomiyaha ardayda. waxaan leeyahay kullee yani alxamdulillah ardayda meesha wax ka bartaan kamid ahay. waxaan leeyahay walaalay Soomaaliyeed waxaan leenahay marka qurbaa joogno aadan isku jecelnahay wadankeena markaan ku laabanana aadan isku jeclaano. waxaan kaloo u mahadcelinayaa dawladda Soomaaliyeed oo naga warqabto oo noohay maadaama wadanka wax ka baranay noo soo magacaawday qof xaaladeena iyo dhibaatadeena iyo waxa meesha nagu haya aan u sheegan karno. marka waan u mahadcelinayaa. waxaan maanta soo dhaweynaynaa walaalkeen Cabduqaadir Cumar Cabdilla Fiidka oo ah gudoomiyaha midowga ardayda Soomaaliyeed. waxaan leenahay aad u mahadsan tahay maadaama aad nagu soo booqatay YMCA ka warqabida aan naga warqabtayna waan kaaga mahadcelinaynaa. runtii taas waa arin lagu farxo waxayna dhiirigelin u tahay ardayda kale ee Soomaaliyeed. runtii mana hilmaami doono waxaan mar kale ku dhahaynaa soo dhawaaw. Yuusuf Maxamed Macalin Kashmiir raadiyaha telefishinka qaranka Soomaaliyeed magaalada caasimadda ee Kampala.